saldhigga labaad ee ku leeyihiin degmada Saylac ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Nisalel oo maanta soo bandhigay dhoolatus ballaaran ay ku xusayaan xuska sanad guuridii 24aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoona sanadkan dhoolatus aad u ballaaran ay soo bandhigeen saldhigga labaad uu ku leeyahay degmada Saylac ciidanka ilaalada xeebaha iyadoona dhoolatus bad iyo bari bay iskugu jira soo bandhigay inta u dhaxaysa jasiiradda Saacadin iyo degmada Saylac iyadoona ciidankani sanadba sanadka ka dambeysay ay sii tarmaysa awoodooda ciidanka ilaalada xeebaha ee degmada Saylac markuu soo ilaaday dhoolatuskaasi ay sameynayeen ciidanku ayaa waxa iyagu halkaasi ka hadlay saraakiisha kala duwan ee ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigga degmada Saylac ugu horeyntina waxaa isagu halkaasi ka hadlay taliyaha howlgelinta ahna kusimaha taliyaha saldhigga ciidanka Axmed Yuusuf Xasan iyo sidoo kale macalinka ciidanka Ismaaciil Maxamed Cawaale iyo taliyaha tababarka ahna afayeenka ciidanka Cabdi Cilmi Ducaale kusimaha taliyaha urur Jaamac Idris Farax maanta oo ay tahay sanad guuridii 24aad ee ciidanka ilaalada xeebaha gaar ahaan saldhigga labaad ee Saylac ee gobolka Salal ayaa maanta waxaanu xusinay sanad guurida oo aan ku faraxnay oo aan muddo badan diyaar u ahayn dhoolatuska ciidanku sameeyay ee uu maanta ka sameeyay saldhiggiisa labaad iyada oo laga maqan yahay taliyihii saldhiggu oo ku maqan yahay shaqo qaran waxaanu ku fulinay saraakiishii ka hooseysay ee saldhigga joogtay oo isxilqaantay oo iyo saraakiisha rugaha saldhigga nooga timiday dhammaan ciidanka oo isku duuban ayaa waxa uu sameeyay xafladii 24aad ee ka soo wareegtay ciidanka ilaalada xeebaha maanta waa 24 guuradii ciidanka ilaalada xeebaha gaar ahaan saldhigga labaad ee Saylac halka waxaan ku soo bandhignay bandhig wanaagsan waxaan mahad celinayaa ciidanka sida fiican uga qayb qaatay iyo madaxda oo mahad celinayaa salaameynaa madaxda jaranka xiirane taliyaha saldhigga Banduulaha Cabdilaahi dhammaan sidaan wada ogsoonnahay xerada wixii lagu bilaabay iyo maantana marxaladda ay taagan tahay iyo ciidanku siduu uga qayb galay iyo tayada ciidanka iyo tiradiisa waa wax muuqata oo la dafari karo hub iyo gaadiid sidoo janaka ciidanka ilaalada xeebaha Maxamed Farax Xuseen Xiirane janakaasi sidoo uu sheegay sanadkii hore iyo sanadka farqiga u dhaxeeya uu arkay una maqlay warbixintana wayga gaadiidkan soo qabanay kontrabaanka ku soo qabanay wax la qarin kara waa waxa hortiina yaala sanadka dambana waxaan rajaynaynaa sidan iyo si ka fiican kana si tayo badan inaan gaadho dhammaan waxaan ugu hambaleynayaa ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland meel kastoo joogaanba sanad guurada awgeed gaar ahaan waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi iyo madaxweynaha ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici dhammaan dadweynaha Soomaaliland meel kastoo joogaanba waan hambaliyaan u diray halkan maanta waxaan uga dabaaldegaynaa sanad guuradii 24aad ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland marka hore waxaan hambalyo u diray dhammaan ciidanka ilaalada xeebaha meel kastoo joogaan Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan waxaan hambalyo u diray taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Maxamed Farax Xuseen Xiirane waxaan leenahay waa taliyihii in badan waxay ahayd dhiirigeliye ciidanka ilaalada xeebaha halkan soo waxaan leenahay hambalyo taliya وعلي أحمد يريه علي دقدرال ورك أريال TV